Kani waxa uu ka mid yahay dhaqankeenna hore aan lahaan jirnay iyo nolosheenna hore ee asalka ahayd. In geela 100 halaad ninku haysto, sanadkiina laga yaabo inay 10 halaad u dhalaan iyo ama wax ka badan. Taasna ay keeni jirto qofkaas inuu isku arko qofka deegaanka ama halka uu ku nool yahay, uu qanisan inuu yahay. Runtiina waa uu yahay oo xoolaha ayaa ka dhigaya qofkaasi mid qani ah. Balse hadda xilligan la joogo taasi muhiim ma ahan, oo qofka 10 halaad leh ayaa ka qanisanaan kara qof 100 halaad lahayo xilligu hore joogay. Iyadoo laga faa'iideysanayo caanaha iyo sida hadda habka geela loo dhaqdo casriga ah. Haddaba waxaa la rabaa xoolaheena aan haysano inaan faa'iidada ay u qalmaan in laga helo aan ka soo saarno. Qofkuna sidii uu miyiga ugu qanisanaan jiray, maanta magaaladana qani ugu noqdo. Aragtidaada adiga sidee kula tahay intaasi ku suurageli karto oo qofku uu ku noqon kara hantiilo dhab ah oo hantidiisa ka faa'iideysta miyi iyo magaalaba. Qaybta hoose ee commentiga aragtidaada nagula wadaag. Mahadsanid.